ووحي طريقي اللي يوجين كعاسي ديبوسو نغضيان كفريقان والله ريالا تمير يا شدوله هدى ودني مراتشا تبقى قات الدين في نفاري إن أنبغى الله لا ديري رانينكي قلبي لا جوكت يا خرائي قلي غي يغيطان قبل زود كما سارا كوي ديدا يتابو تقفيري جمال دونتي دارها في الدوسار كو دغراو يلوهي أيهو جفاع قالي كو سيرد لوه بوبي تسكو كلا ونكسني رقاي قلب سيدان يرسو كل موز مدعين هدي نرش الدوناني كل موز مدعين هدي نرش الدوناني ويرشي دقالمي مركي دبسي باروسو هو النوطن بيو رساسي هدان كنو ورود ماركو ديديو بيها وكتابا قادو هري ماذا علمي قدار عن الدين تبارا ليسا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة waxay ku saabsan tahay insha Allah ta'ala kelimo guud iska wasiya dardaaran waxaan ka awoodno inaad soo dhawaataan jeclaan lahaa maadaama hadda mikrofoonku soo shaqeynay waxaynu ku jiraa xilli aad iyo aad u adag culumaduna in badan ay ka dayriyeen oo laga cabaaday idinkuna waxaa tihiin culumadii iyo macallimiinta ummadda ama soo saari lahayd jiilka la doonayo ummadda inuu wax ka bedelo dhakhaatiirta ummaddaa tihiin Sufyaan ath-Thawri ayaa waxaa ka sugan inuu yidhi alcaalimu tabiibu haadihi al-umma ninka caalimka ah waa ummaddan islaamka dhakhtarkeedii فإذا جر العالم الداء إلى نفسه فمتى يبرئ الناس بول وحولي عالمك وأمد الداوة دي الدنيا دي مالكنا وعذرك أمده عذرك هدو عالمك سوچيتو أما دخترك سوچيتو أمد يا داوين بول مركا وحالة دونها يا إناد نقطان حدقي أما إنديه أمد صومالي وحيتر هذا أري إنديه وريو إذو وحاهو قامي الرياها ummadana waa taqaanaan oo idinka hogaaminaya culimada iyo ducaada iyo macallimiinta marka inaad noqotaan dad aad iyo aad u khayr badan oo ummadda u ah qudwo ayaa la doonayaa nabigu salawaatullaahi wa salaamu calayhi hawsha ayada inay isbedelayso oo culimadu isbedelahayaan oo adduunku kharimahayo oo wuxuu dhanba iltibaas ka dhacayo waa si tilmaamay حديث أنس رضي الله تعالى عنه أيين وحكت المامينا صحابي أنس وحوليه نبي وحنكون يا رسول الله qolyahaasa inagu aynu daba taagannahay intana xumaata saxaabadu waa nabiga su'aal bay ku ceshoono waxay yiraahdeen nabi allow wama dhahara fil umami qablana ummadii hore ee naga horeeyay waxa ka dhaahiray laga dhaxilay fasaadka ah muxuu yahay nabi wuxuu yiri al mulku
daahana khiyaarukum fujaarakum akhyaartiinni iyo culumadiinni iyo cuqaashiinni iyo wujahaa'u nnaasi wa cilyatu lqowm haddayba ka wareegaysanayaan inay xaqa badheedhaan oo ay ku aadaan marka ayadaa waa idiin dhammaatay samatabaxna ma lihida waxaa nin kastaba gurigiisaa ku aruurso idan iddihaam fi lkhiyaar alfuxshu oo zinadu kow ka tahay fi lashraar milkigii iyo siyaasaddii iyo maamulka fil ashaar buu galay oo ahlulbidaci loo jeedo ama sikaaru siniba loo jeedo mararka qaarkood fiqigii fusaaqdii buu galay marka ayada ah waxaa weeyaan ha lays ilaaliyo wey culummadu waxay dhahdeen axaadiisulfitan loo sheegaa in laga digtoonaado xudayfana asalkaa taqriiriye oo saxaabadu nabigu waxay weydiin jireen fi saxiix khayrka wa kuntu as'alu can ashar makhaafata an yudrikani waa garanaysaan waxaannu xadiidka u baraarujeen maadaama aad culummadii tihiin iyo macallimiintii iyo murabbiyiinta ummadda hawlaha in la iska ilaaliyo waaqicana wax lagu qaybsado aadna loo digtoonaado waa iga dardaaran waana baraarujinaynaa masalada ii raacda waxaa weeye ee maxalu shaahidka masalatu alikhlaas cilmi iyo tarbiyo iyo dacwa lagu jiraa marka ikhlaaska waa in lagu dadaalo ikhlaasku culammadu waxay yidhahdeen waa ifraadu ullahi subxaanahu wa tacaala bilqasdi fi taaca ilaahay in lagu gooni yeelo cibaadada iyo taacada bilqasd cid kale ha danaynin hebel baa kugu ammaani iyo hebel baa kugu goyn iyo cid baa wax kaaga sheegi iyo mid baa kaaga xumaan iyo yacni innaba ha isku dayin ilaahay subxaanahu wa tacaala abbaar ummadda asagaa soo kaxay qulubta asagaa maamulo ummaddan asagaa hoggaamiya asagaa abuuray idan adugu haddaad toosto khaaliqu ku abuuray aad ku hagaagto ilaahay subxaanahu wa tacaala xisaabaha kale asagaa keenahay laakiin adoon meel la gaadhinba ha ku barhgo'in inaad khalqiga iyo ummadda wax ka raadiso waa ifraadullahi subxaanahu wa tacaala bilqasdi fi taaca waadaha qaarkood waxay dhahdeen ikhlaasku waxaa weeye waa tasfiyatu alficli can mulaaxadati almakhluuqiin ficilka aad samaynayseen markaa ama qowl ah ama camal ah ama qasad ah ama salaada ama tarbiya ah ama waxbarid ah ummadaha iyo khalaa'iqda innaba ha u tixreebin yacni ka saar meesha xisaabaha kale cidna ha milcisanin sidaa darteed masalatu alikhlaas waa asaaska diinteenni wey sufyaan athawri wuxuu leeyahay maa caalajtu shay'an ashaddu calaya min niyatii buu markuu dhintay sufyaan athawri salafku waxay yidhahdeen alyawma maata alwarac xalaal miirad iyo daacadnimo iyo hufnaan maantay dhimatay ninkii noocaasa wuxuu leeyahay waxaan ku dadaalo oon daawadaaweeyo oon isku dayo inaan la imaado wax iiga daran ikhlaaska ma jirabu inaad camalka aad samaynayso saafi ka dhigto oo ilaahay u saafi garayso oodan dadkan ku leexan oodan milicsanin hawl adag wey sahal ibni cabdillaahi tasturi oo ragga zuhaadaaya weliba tasawufkii hore ee qiimaha badnaa ahaa yaa wuxuu leeyahay waxaa la weyddiiyey ayu shayin ashaddu cala annafsi ruuxa bini aadamka naftiisa wuxuu ku hagaajiyo oo ku tarbiyeeyo maxaa ugu adag wuxuu leeyahay alikhlaas ikhlaaska ugu adag li'annahu laysa lahaa fiihi nasiibun naftu ikhlaasku wuxuu u dhibhayaa wax danan ugu jirin xagga adduunyada ah camalkan cidnaha ku mulaaxadayn cidnaha ku tixgelin ilaahay keligii la aad naftu dani oguma jirto adduunka marka la firi aakharo un mooyeen bini aadamkuna wuxuu doonayaa wixiisii oo diyaar ah oo tag away ama safaari inuu hore u qaato xisaabaha dambe aakhara ummaddu kuma fiicno wax degdega oo diyaarsan oo haddaba la arkay midhihiisii buu doonayaa bil hadduu shaqeeyo wuxuu doonaya uu nacfiga arko hadduu sanad ummadda wax barhayo inuu culmo soo saaro meel fadhiisuu doonaya yani ummadda khalqiga bini aadamkaa saa isku ahoo khuliqa alinsaanu min cajal wey degdega yaa saa iska ah marka naftu maadaama ay midhihii ikhlaaska aysan adduunyada ku dheefsanaynin aakharo un mooyeen naftu saasuu ikhlaaska ugu adag yahay buui ama ariyaa oo asaguna musiibo kale ah waa idhaaru alcibaadati liqasdi ru'yati annaas cibaadadii iyo camalka ood muujiso dadku say u arkaan wey kaasaa riyaa loo yaqaanaa waxyaabaha ikhlaaska marka dhaawacuu ka mid yahay waa idhaar alcibaada aw alcamal liqasdi ru'yati annaas sumcada ayada waxa loo yaqaano cudurraha dhaawaca ikhlaaska ka mida waxaa weeye alcamalu liajli annaas alcamalu liajli samaaci annaas cafwan waa inaad u shaqaysada camalka oo la timaado ha lagu maqlo wayna kala duwan yihiin riyuhu wuxuu ku dhacaa waxa markaa laguu jeedo
adoo quraan iska akhrisanayo aayar iska dareersanaya wadaadku soo daba fadhiistay qiraadii baad qurxin codka kor u qaadi si dhinkee baad kala bedeli xisaabi baad dallacaysa idan waa markaa waa lagu hor taagan yahay oo ruuxii baa ku arka amaa sumcadu inta badan waxay dhacdaa markaan laguu jeedin xalay baad matalan salaatuleyl qiimo badan tukatay iyo witr iyo tahajud markaasaa waxaad doonaysaa camalkii xalay inaad la ogaado ilaa cidna kuma ogayni si lagugu tixreebo hadhow koobka shaha lagugu siiyo ama lagaaga leexdo gogasha xalay 9 saac wixii shanqarayay muxuu baad leedahay 9 saac wixii shanqarayay muxuu ahaa jug ba xalay yeedhaysay xaafadda isleeda xalay aygi waa laga seexan waay oo xalay maraan musqusha ku jiray hawlahaas socday yani waxaad rabtaa min bu'din in laga fahmo inaad caabidta habeenkii aadan seexaninba yani amalka aad si khaasa u qabatay iyo meel qarsoon marka doonayso ummadda inaad u muujiso sumca la yiraahdaa marka lagu hor taagan yahay amalka aad samaynayso dadku inay wax kugu siiyaan ama ay kugu dadaalaan ama ay kugu jeclaan riya loo yaqaan intuba waa in laga fogaado الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه آيات تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين مركو شرح يا وحولية آيات أفر روح بك الله هل روح بك كبت بالها يبو أفر سنفي بها سوقلي سنفي واحدة كبت بالها ضدكو أفر قيبون هل قيب آيات مركا منطوقة يا نسك صريحة كشيكتي صدحنا وسوقلها ينا ولا فهم اياه مفهوم بدليل الخطاب أو بفحوى الخطاب أو بالإيماء والتنبيه إشارات بلغو فهمي كرا انت سوقاب بأتو سيسا نيو حاجر أدونك دونها هي فساد يعلو تلك الدار الآخرة لنجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا إنو أصوق عنت سرية شو سريانا ما دونها هي إنو أدونك فساديو أخلاق ضرئية شرئية فسادية حمكب عين ما دونها هي إذا وحاجر مركا من يريد العلو في الأرض والفساد نوعا وحاول يقوليها الرؤاسة إيه ملوك إيه لمنك أود له من التريء أما عيدا ميدله حقا أن الدونة هي إفساد في الأرض كفرعون أدونك إنه فساديه الرباء ومع ذلك أصغ أصريه إلهي إن لقوش كفريه وشركي أدون كرعه وهريه وكفره أدون كهريه وأدونها هي ومع ذلك أود إنه أصغه قاميه ومقع سرية شنوه الرباء وأفجر خلق الله يأشد الناس عذابا ضدك النوعاس الذين يريدون علوا في السلطة سيدوك الفساد في الأرض والنوع قوني أول آيات ولا فهمي بقرة الجبابرة يخونة يقوليها الجورة ضدك أبدا فساد واربا ومدوني فساده خمرة لعبه إذا بضربه بضاته لبابه أيضا الله نعم لايه oo kool box loo noqdo waa doonayaan tayib inay gacanta sare iyo magaca sare iyo magacoodu socona waa doonayaan qaybta labaad ee aayada soo gali ayaguna mufsidiinta waxa weey alladhi yuridu alfasad wala yuridu aluluwa asoo inuu magac yeesho oo ummadda hogaamiyo oo gacanta sare yeesho ma doonayaan laakiin muxuu rabaa fasad waqoliyaha tuugta oo kale tuugu dhar la wadhay iska qaadan haya ركور ميلكو يا ليبو لك عهايا موبايل جاد ماشي صار طيب حلو وقاية متقاند ومفسد لكن أصدق إن لقدم بيو الرئاسية السلطنية مقعوية يشمدون هاي قصد كيسو وليفسد إذن ننكا فساد كبس الدون هاي كسفلة الناس إيو فساقضة إيو قليها توقت إيو اللصوص إيو قوة صوقلة أيقون وحاويا وأهل شر آيات وحاويا وكبحين ميل حن بيتجه هيات نيو حاشر أصغو يريد العلو بس ولا يريد الفساد ضدك أهل الدين كاتها أي قشاب وليه شيخ وداعي وعالم وفقيه ومعلم ومربي وأهل خير لكن وحودونها هي كليجي وحلا قد جيست ضدك إنه هلك قبضوا دونها هي لكن مرة بأمضوا إنه فساد دون ما هي صوماليين أيضا تيسم مرة قبلوا إنه حجاب كديان دوني ماهي إلهي إن لقوا كفرية دوني ماهي إلا فساد دوني ماهي ومضوا إنه في عناط الربا أوها قالتوا إلهي كامر قاتل لكن حسابها إيه وناقا أساق الله تيريو نين كدن بيان وصن علين محور ربا نين كامر قاسي
yuriidu alculuwa aayadda ma soo gelin waa ka baxay aayadda waxaa ku soo hadhay ilaahay aakhara siinhayaa alladii laa yuriidu alculuwa waalfasaad ninkii fasaadka basa doonhaya waa baxay kii culuwa doonhaya wadaadka ahaa waa sida maanta wadaadaha ku badan iyo ducaadaba ku badan wey hadalku asagu yidhaahda dabadii in lagu dhufto ma doonayo ama wixii wanaaga la sheegay asaga in loo tiriyo dooni annagaa soo saaray annagaa qabannay waa xasana min xasanaatina haddaanan keeni lahayn maxay ahaan lahaayeen war camalkan cibaaduha alla dirtu aad u qabatay ee bannaanka fadhiiso xisaabahan iyo manasheedkan jooji طيب إذن الذي يريد الفساد والذي يريد العلو والذي يريد كلاهما أو كليهما دونها العلو والفساد صدح ضباء أهل شر هذا وحاكسها هري ننك مخلص كأه إن لا يريد الإفساد في الأرض ولا يريد العلو والتسلط على الناس ذلك النوع عاسى يؤمضوا أمانتي إلى هنا أما أيان نقطان أيان دوننا إن شاء الله تعاون رجلينا إخلاصكو waa shay aad iyo aad u qiimo badan waana lafdhabartii diinteenna wey ninka loo yaqaan abulbakhtari saciid ibnu fayruuz التابعي الجليل وحورن جري وددت أن يطاع الله وحده وإني كنت عبدا مملوكا حلو وحن شعلان لها وتابعي جليل أمد الرقي إلهي كو أنفعي مقعبوا ليهي من رجال الشيخين طيب ومع ذلك وحوليهي وحن شعلان لها أمد إلهي إني عابدوي وضضا وناكسن قراته أنينا أن أدون نقضه بمعنى أن لا يتيرني وحبا أنا كوية لنهو شايدا muhiimadu ma aha inaad ummadda ka dhex muuqato ood magac yeelato ood ummadda hogaamisay muhiimadu waxaa weeye addoommahan inay ilaahay addoonnimadiisa qiraan inay addoommo u yihiin ogaadaan hawshaana ay qiraan kana dambeeyaan sharcigana ku dhaqmaan way muhiimadu aharkaas fayruuz waxaa soo saaray ibnu mubaarak fi kitaabi zuhdi bisanadin saxiix nucaym bnu xamaad min ahli sunna waljamaca a'immatu salaf wuxuu leeyahay darbu siyaati ahwanu calayna من النية الصالحة إن للشابوغو أو لا يتشيدلو أو لا يكرباشو أيا يقفض بنا النية الصالحة الله إماغ يعني وإخلاص بوجه ده نيدو مرنا وحالوش ده مدى عملك وكو أصحو وقصدك عادك مرنا وإخلاصك عملك أن لا أقبلين لا أنت لأنه الصحابة ظاهرك أي قبولك ولا بك لما سألوا من إخلاص لفدور ومن نوحة لفدور النية أي قصدي عمك لو قصد شروطي سنة وطأ فقه وافقسان إيو أعماش عادقة هي شروط عادقة هي وحولي إن لا يشيدلو لا يشابه ولا يكرباشو أيا يغفضت إن النية الصالحة في الأعمال لا إماده فضيل بن عياض وحولي أصوه من لم يكن في عمله أكيس من ساحر وقع في الرياء عملك الله إيمانه إن كان كحريف سنين أون كفي دوين ساحرك هو مصيبة دي واحد يقول مسكوح حرايا بلاوي سمين هيا مسكح وين باكو ركبا ونين ماهر أوي نين كان ساحر بوري كفي دونين أون كدوك بنين أون كعقل بنين بوري هذا يكور عمل قصر سحر وحوض أحفر سنة يا شرك الرياء وشرك أصغر أوي ميلا أركي نينبو كاسو قلي هذا لو قمنت يبقى أحفر سنة marka aad in la soo ilaaliyo acmaashiina iyo dacwadiina iyo cilmigiina iyo tarbiyadiina waynu dardaarmaynaa xamdu ibn ahmad oo min culamaa'i salaf ba waxa la weydiiyay ma baalu kalaami salaf anfacu min kalaamina balay salafku hadal yar buu nin oranay umada ilaahay ku anfacay anagu bar ajalan buuxin shan mujallad buuxi 30 kitaab alif waxba ka socon maayo waa sidee bay yiraahdaa xagee wax iska qaban la yahay salafku كلمة يرو يدهدين بإله أمدكو أنفعها هذا الكود وافقي وعلم وحكمه أمدنا الصنائية السامين بكله أنه وحا يجي وهل بعض يقول لي سوح قبض مميه واسده بإلهي وحوري لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق وانك لا تغنبه منك السلف كعالم كإمامك مركو هالله wuxuu hadlay islaamku waxa noqdo guusha saray gacantu asagu ha yeesho naftaada aad ku badbaadido xilkaada gudo diineed ilaahayna raali geliyo saddexda qodob oo hadlaabo ilaahay uu raali geliyo islaamku uu doonayo inuu wax noqdo
نفتي سو لي حلك الدين يتقدو أنه سماها بروح هذا الكينو نقضي بلاشك نتكلم بالعز النفوس أبوك هورتا سيدا ضبا أماشا شربكو يلي تمقع ميسك وإناد قراعضو منابرتا وإناد كموقتو مقالة وإن لقوه فرديه واي سيدا ضبا واسده انت والصناة الحرو ويدوح برنيسو أو معلنا هايدي محال لقوه اعتراف الأيام كو صومالي أما وداده ما أنت تشوغي بدنكوت إلا من رحم ربي نفتي سوسا كدمانين إنو أصوح نقضها لنبركوه مركو أصوح نقضه أمضو مركا حقوق باليس يعرب لغا هيش لكن أصوح إنو مال فريست وأمضي كدحا مغضو سيدا درت يدبي ودادو بعيد هذين قيبا كميدا والعالم عند العوام من سعد المنابر وهز الأعواد نينك تيرك الجلجلام من بركان فولا نينك أنبا عالم عند العامة يعني الروح مسلم كي داعية ما أنت وحل دون حسابها النفتي سي حدود كبرنان كي توقيه إلهي سبحانه وتعالى مشروع سيميزكا صوصر تكاسو كل بنايا ضدكو يا اسكا إيمان والله صوك حيل طيب وليها تبليغ يا وحيرون جرين أثر باكر وضعيف لكن وأثر اسكفع حاجة معناها إلهي بحوري يا دنيا اخدمي من خدمني واستخدمي من خدمك الدنيا إنك أنا إيشقي يا الله وأعماشي إذا كسر بحي واجباتك أشقي ودبا أرد نينك أديه كوكو نفبحي كوكو سنة كوما شقيسو بيها كودانس يعني معنا صحوي الدنيا يدا والنوع عاسا هذا إلهي سبحانه وتعالى أد حقيسا وحن ورنا سكاكين هاي حديثا لكن الدنيا كو أنفريرتو أيضا أد قصصت أيضا كو قصص إلهي مركز دنبكو ديش وحلوكي هاوي حديث كيف عضيني أثر كاس ضعيف كا وحعضيني حديث من كانت الدنيا همه حديث كاس عضيني فرق من بنانك اسكاجي أرنكا أساق إخلاصكا وإن علمو يا معلمين اللي قد دالو إلهنا سبحانه وتعالى وحلموده ضدك وركضن لوك هذه قضبك
sababahan ilaahay baa iska leh adigu juhdi bashari ah oo awoodada ku saaran iyo ikhlaas iyo daacadnimo iyo hufnaan nin Soomaaliyeed baa loogu yimid meel tuulo dhakhtar buu isbitaal mas'uulka ahaa wax daawo oo yaala ma jiro keen kaabsool iyo asbaro iyo waxba ummadda ku xaabiya waa la jecel yahay nin baa la yaabay wadad bay iga shakiyay tuuladii buu tagay waxa dhibuu niyo meesha xukuma haysid waa sidee dadkuna un dhakhtar hebel bay kugu hayaari xur meesha daawo kuma haynee daacadnimaan ku haynaabu waa runtii hade daawo ma hay laakiin daacad baan u hay waan tilmaami waan la talin waan la xanuunsan waan la shaqayn midna asagoo caalima oo aqoon sare leh oo daawada buuxdo irbad kugu mudi oo kugu jabinaya xisaabta marka daacadnimadu waa laf dhabarta camalka dacawigeena ku jira way marka aad iyo aad loogu dadaalo alla iska ilaaliyo dabba ilaykum daa'ul ummi qablakum alhasad wal baghda wa kana hadithki aw garanaysa fi jaamic tirmidhi wa ghayri bazaarna asli soo saara oo dheer cudurri ummadii hore halaagay oo isnac iyo nacayb iyo cadaawad iyo xasad aha ba idinku soo xamaartay muslimiinay nabigu isnacaas aad uga soo qaylo wuxuu yiri midda ayada diinta xiiraysa timaha xiiro oran mahaye waxay u dhamayn diinta dadku haday isnacaan waa musiibo Soomaa wala kala tagi macallimiintu is salaamaynin ayagoo dagaalami oo si kala jeedo oo indhaha isku mudi oo markuu ruuxu sii jeedana waad fiirin haduu soo jeesto waad sii jeesto markuu dhaqaaqana waad eegi wuu soo jeesaday xagga darbigaad fiirinaysa yani waxyaabaa noocaas wax loo baahan yahay ma in la soo cudur daaro oo ahal iyo walaal noqdo waa shay laga maarmaan xasadku waxay leeyihiin culamaa salaf taabiciin farabadan xasan al-basri iyo qataada iyo junaada ibn abi umayya waxay leeyihiin waa awwalu dhanbin usiya billah dambigu oo horeey ilaahay lagu caasiyay xasad buu ahaa waa sax abuna aadam ya xasday iblis kadibna xasadku wuxuu ku xambaaray inuu diido amarka ilaahay ee sujuud ah إن أول خطيئة كانت الحسد حسد إبليس آدم أن يسجد له فحمله الحسد على المعصية حسن البصري وحال ويديي مركي الأمانة أنصار ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا الحاجة هنا وحده هو الحسد أنصار وحال ويقانا هدو النبي مهاجرين حوله كتبعوا كهل مهايا هدي الله قضية دن كمالي هل الدقاء الله مصفكروا التقايا meeshu nin muhaajir ku shiido 10 ansaarat Allah 20 muhaajiriin meesha yeelan 7 ansaarat Allah yaani dhan kastaba waa saas waxasaday u qabaan muuminiinta iyo muslimiinta iyo muhaajiriin madna ma jira waa soo dhaweynaya dadka waxa lagu yaqaan qolyo markay soo barakacdo qolyaha kale la dul dagay inay xogow dagaalamaan ficil iyo qaxootiga iyo kuwan maxay ahaayeen la riixay iyo ansaar waxa ma taqaan Soomaalida hadda markay muslimiinta Soomaaliya dib soo gaaray ee guriyada yaraha qaaliyoobeen dukaamada la isku yar qabsaday tuubooyinkii biyihii la kala qaybsaday maxaa dhacay ma taqaan dagaal baa dhacay qoliyii isli dagana waa loo fadhiyay waa dibkan waxa kana kuwa soo qaxay reer koonfur baan rogay reer xamar baa soo qaxay nafti wadaada ka hadlay iska daa wax kale dibku meeshu gaaray in hayr hawshii la farsameeyo Soomaa محاضرات بلغة قبطي دكسية هناك كغاها شين بلغة بركين سوسامة يعني أصل وحاوي ومد مركي صوبرة كعلى أمك دول دكتو هدان إيمان يا إسلام ما عروس أي سنترين إلا سلب صلاة أصلا وعروس كلا قاضي وايو أو لقل مقل ميستو هرقبيو بدن بعد تاقصبوي لكن أنصار الله وحواك إلهي سبحانه وتعالى مركا وحالدونا يعني من أنا إسحاسدين النقطات وإلهي سبحانه وتعالى اسكو حدا حديثك أنس بن مالك يا عبد الله بن عمرو بن عاص هو حديث مهم وإن لا براروج عبد الله بن عمرو بن عاص وحوليه مال أم من برقنا نقول مسجد كنبي محمد فدنا بان النبي وحول صلى الله عليه وسلم وحيدين سوقلي دونا رجل من أهل الجنة وحارب آباه الله وكدك دق عمرو بن عاص وهو يسسنا أقابل ويقدم بي إله آباه مسوقله وهذا مسكين أنصاري ومركز سوى يستوي بيكات تفقهيا ولا بدك كبود دعمها قوة لا بك كبود وقريب أنت سوق شديد مسات سوق لي بس سوق النبي حلو واكن عنك أهل الجنة قال إسكامس مالك حجاب وصوبنا هذا وحول يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة مرة وحيدين سوق له دون أهل الجنة أسيبها سوق له وحلي سوى يستوي هذا نبي كات تفقهيا نصعد مر صدحات مالين صدحات صدح بقى اسكو حكتي
cabdullahi ibn camr caas go'aan wuxuu qaatay in uu ogaado saxaabigaas wuxuu janno ku helay nabiguna maalin kasta ugu bishaaraynayo wuu tagay wuxuu yidhi markuu baxay la tukaday duhurkii buu ka daba tagay wuxuu yidhi xoogow ahalkii baan isku yar dhacnay maalmahan waxaan rabaa inaan yar weji laabo oon ka madax laabo waalidkii iyo aabba iyo hooyo iyo saana u soo cara furfuro duqi baa i soo caydiyey nin yar buu iska dhigahayaa oo la soo caydiyey marka waxaan rabaa inaan dhowr habeen kula baryo wuxuu rabaa inuu basaaso ogaado wuxuu sameeyey habeenka iyo camalkiisa iyo cibaadadiisa 3 habeen markaan la baryey buu ninkii wuxuu yidhi salaad badan ma laha soon badan ma laha qur'aan akhris badan ma jiro laakiin waa nin dhib yar buu wax sharab ma laha dhawaq iyo sawaxan iyo qayle iyo midna ka maqlimaysid hadduu hadlo dikri buu ku hadlaabo habeenkeedu isurogahay adkaar buu akhriyey tawxiidku ku dhawaaqadana waa sii seexan buu salaada fajr buu si fiican u tukadaa soon badan ma laha waan la yaab maalinka saddexaad baan waxaa yidhi adeero ma fahmaysaa ma aragtaa haa wuxuu yidhi wax dhiba ma jiro aniga aabbahay tolay qaraabaana dagaal lama jirin 3 maalmood isu xigtuu nabigu kugu bishaareeyey janno waxaan doonahay inaan soo salxaadho wixii aad ku kasbatay camalka intaa dhan iyo jannada ayadaa hadda wax ii muuqdo fiican ma jiree oo wax ayaga ka badane maxaa kuu qarsoon wuxuu ku yidhi huwa maa ra'ayta camalkaygu buhi waxaad arkayso un weeye wax ii qarsoon ma jiro غير أني لا أجد في نفسي غلا لأحد من المسلمين ولا أحسده على خير أعطاه الله إياه روح بنا آدم إله مسلمة وحو ربي سيي كما حسدبور ومع ذلك الروح أن أطني أقوى مجرب المسلمين انت هديسنا هين بروح كلو يقرصون أغاهي مجرب جنة اللي يقول بشاري إلهي نبي خير هاسي الله هايسيبو انت هاسانك لغايا بابو لإنا وحكوها ليه طلب متاسا مسوا وحكلي عبد الله وحوري وحا أن كرين تنويبو مدنا لكرين هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيقه درجة وحد كل شيء وإن قلبك هذا غل خيانه إيه عقدد إيه أوركوتال من نبو روح مسلم أوهيلي مد اللبات حسد آذان كترين حديثك هو حصول صار عبد الله مبارك في كتاب الزهد بسند صحيح عبد الرزاق أحمد غير كتبه شيء حسدك ومرض طبيعي وخلقي قوي واحد ادو عين كرتنا معها لكن شرع وحو كان يحاوي عذرك قلبك يمد فلك كيمن يا لديدنيا شيء كستو وناغا اديغا حق هذا واد جعشا اديغا يا كوسيه اديغا يا كل سؤال شو ادو كان كاغا فيعنا way ku gali laakiin waa inaan carabkaada iyo dibnahaada iyo adinkaada uusan ka muuqanin ha ku hadlin xasadka روحي ها فلقادين ها عاين ها كحد قدبن قعنتها كهالين يعني عمليا ها أمو جن حسدك انتو قلبك هذا انكتر يلابت هذا وحبكو يلي ماي لكن مالي كاسو افبحوه وروحي كحد قدوتم مركا ويدبكو إذا ظننتم فلا تحققوا وإذا حسدتم فلا تبغوا وإذا تطيرتم فامضوا على ربكم توكلوا حديث يا بعضيني هذا وح مليسان ماليه حقيقيا لقدقي نمبا ماليه ومليه طبكدي هو يقين وكل رمب إذن هذا وح ملايسون مليه حقيقة كدين بصبانو له هدي الحسد كجلنا فلا تبغوا هاد قد بنا بمعنى يصيدك صيف بحن نينك وحباس يستير شرايستنا هراء وصعده بالدنبيل لما دقاقية على الجمعة حسابها هذي كجلان يوم 3 صدعية دقاق أو يستاجي هدي الهكاتو صومها وحتكون على شركة النوع عاسها سيادرت سلك عن الدواء الحسد كتمانه حسد داودي وإن لقريه ترى الصريح مقع موقالك هيبدا وعكست الروح بني ادم حقيسو انه نقض وادون هيا لكن حسابها قلبك هذا كجيرين يي كاسو بخ هدي اد قلبك كدفاعي ويدو ييسن كاسو افبخن امدنا او غدبن سدا درتد بعض وحيونجا النعمه على صاحبها نعمه وعلى حاسدها نقمه شيء النعمه نينك الله سيا نعمه او تاي نينك حاسدك انا ما كو تاي نقمه بلايا كوابس وبحنوسن وضي الصوماليات بقى اللي هبلوا قرمان نحضر صدح قرمان نحابه وصدح عليه حولي مركان الله سمغلية حبل الرده هاي وانا لما محي اهيد إني هبل بقى قبر كينا الله صبحي إني هبل الله صبحي مرة هدو سويل كي قاهين بورتا واكن نحابه أنا قرآن أنا كيرين
haddaan allah siya mashxarad iyo xabad rida aan maqlo yahay wiil baa dhashay hebel buu u dhashana waan ka naxabu qodob saddexaad lagu daraynin na waa jira asagu dee lagu darana qoyskii baa loogaanaya marka waa dayn arrintan dardaarmahayo taas waxay geel marka la keeno qolyahana iskala anfilhaya marka geel intii la soo dhacal la keeno xabad iyo mashxarad aan maqlo geel yaa ilmo hebel baa geel soo dhacay kuwaygana aysan ku jirin waan ka naxabu bal fiirsada wuxuu ku xasdaayay macsiyo iyo dulmi iyo xoolo la soo dhacay oo rag soo dhaceen buu maadaama wiilashiisa ay ku jira waa ka naxaaya almuhim xasadku waxa weeye calaa saaxibi nicmati nicmu u yahay nicmadu ninkii ku xastaayana waa musiibo cudur baa u soo hayay wuu xanuunsan wuu neefsan qul lil xasuudi idaa tanafasa sacdatan ya zaaliman wa kaannahu madluum adugu haddii aad dareento in lagu xasdahayana naftiisa kaa bixi dhib baa jira ma ogtahay nin baa wuxuu dareemaya xoogin la daba taagan yahay oo la xasdahayo laftirkaaha inaad gelmagelmaysido rargubyootoo dagaalanto lama baahanee hore u sii soco ha ku noqonin maalinkaad ayaga ku noqotay la xisaabtanto waa ku dhammaatay waxay yidhahaan qolyahan udabada ah baashan garanuugta ah ama cawshu waa ka dheeraysaa xagga oradka eygana lagu waarsadoo qabta ibnu qayim baa ku sheegay fi kitaabi miftaax daara sacdan fila inuu ahaa garnuugta hadday booddo ey ma gaadho si kastoo u ordo ma gaadho haddaysa soo jeedsanin cawshuna waa sidoo kale laakiin maxaa loo gaadhaa oo loo qabtaa waxaa loo qabtaa markay cabbaar orodaba waxay dhixa bal fiiri baalkay xaggee soo marhaya way hakatay lugtay qabata asaguna wuxuu ku socdaa boqol buu kortay idu waa hakatay hakadkaas wuxuu soo geynaya intaasoo kilomitir haddana mar labaad bay hakanoo fiirin wuu soo dhowaan mar saddexaad marka afraad hakata wuu ku dhagahayaa haddaad marka nin kastoo wax kaa sheegaba dib u fiiriso weligaa dhaqaaqi maysid waxbana kuu socon maayo sidii muxuu anwar asadaad bale akhwaanulmuslimiin baa kugu kacsano inay ku dilaan bay doonahaya wuxuu idhi alqaaficu tasiir walkilaabu tanbaxbu korayadu way iska socon buuhi eydun ha dhawaaqeen korayada iyo dawladdan wada way socon buuhi wixii eya meelaha ha dhawaaqo xusaadu ha iska dhawaaqeen faraha ka qaad adugu cilmigaada iyo dacwadaada iyo tarbiya dugsigaada wado ummaddana faraha ka qaad ayagana dib ha ugu noqon ilahayna isku xidh qodobka i raaca waxaa weeye afraad almusaaraxa wasidqi maca annaas haddii ilaahay ikhlaas camalkiisa lagaaga baahan yahay haddana ummadda runta in loo sheegayo waa laga maarmaan almusaaraxa wasidqi maca annaas haddii taa la waayo waxoo dhan baa kharimahaya adduunkao dhan baa isku sumahaya nabigu sal ly slam arrintaasoo ka hadlay alaa innii uushiku an udcaa fa ujiiba saxaabay waxaa dhow in la ii yeedho oo marka aan yeedhitaanka alla aqbalo bimacnaa waan geeriyoon wey fayaliikum cummaalun min bacdii taladay usha waxaa idiin qaban madaxweynayaal yaquuluuna maa yaclamuun wa yacmaluuna maa yacrifuun waxaa idin maamuli doona markaan ugu dhinto madaxweynayaal ku hadlahaya waxay yaqaanaan wuxuu sheegi waa yaqaanaa aqoon buu le waa cumar waa abubakar waa cuثmaan iyo saxaabadii waxay sheegayaan aqoon diineed bay u leeyihiin waxayna ummadda ku dhaqayaan waxay yaqaanaan cilman wa camalan waxay og yihiin wey qolyaha maxaa ka dambay nabi wuxuu uhi wa taacatu ulaa'ika taaca qolyaha in la adeeco waa ilaahay oo la adeecay maxaa yeele waa culumo waa ahludiin waa sulxo weeye dariiqii nebi maxamed bay hayaan fatalbathuuna kadalika dahran ثuma yaliikum cummaalun min bacdihim yaquuluuna maa laa yaclamuun wa yacmaluuna maa laa yacrifuun kadib waxaa ka dambayn da'wicil baa ka dambay niman baas oo musiibo ah baa raggaa ku xigi khalaf baas weeye khuluuf qolyaha dhibkoodu waa maxay uu hadli wuxuu sheegahaya cilmi ooma laha wuu camal fali aqoon ooma laha waa jaahil bimaa yacmal jaahil bimaa yaquul ummaddii marka meel cidlo oo jaf ah yuu ku caydhinhaya wadagoodar buu u qaadi meelaan daanyeerku fulin buu fuulahaya haddana wuxuu leey waa diin ha laga amar qaato 74 dawladdu markay ku dhawaaqday hanti wadaagga ayaan qaadanaynaa bay dawladdu tiri hanti wadaaggaas oo ku salaysan diinta islaamka waxaa la ii sheegay radiyallaahu allaha ka raalli noqda nabigu u jeedaa in ayadoo duulaan la yahay raashinku yaraaday kadibna ummaddii raashinka iskugu dardare loo qaybiyey hanti wadaaggaa diinta ku dhisan iyo islaamka baynu ku dhaqmaynaa sanad kadib
maxaa yimid kii Lenin iyo Marx baa yimid xuraanti wadaag waxa aan ku dhaqmaynaa cilmiga ku dhisan diintina waa la nasakhay yani lama yaqaan meel loo socdo meel laga jeedo nabigu intuu noolaa laba diinta laba qaybo kitaabka quraanka laba meelood saddex meelood laba nasakhay buu anagu inta dambe inaan ka hadal xaq ban u leeyahay kadibna wixii ka dhacay baa ka dhacay idan kuwa noocaasa ummadda halka u istaagay nabigu kuwa muxuu yidhi kuwa boqorrada ama madaxda ee ummadda qabsanhaya ee juhalada ah nabigu wuxuu leeyahay faman naasaxahum qolyaha ninkii daacad u noqda wa waazarahum garab iyo wasiira u noqda wa shadda calaa acdaadihim garab iyo gacal u noqda fa ulaa'ika qad halakuu wa ahlakuu kuwa iyagu waa halaagsameen culummada ama wadaadada ama shacabka kaleba ama duqaydaba ah ummaddana waa halaageen sheekh hebel baa maray baa lagu dhihi oday hebel baa ka taliyey baasha hadday khariban tahay maxaa culummada raaciyey nabi wuxuu leey faman naasaxahum aw wawaazarahum washadda calaa acdaadihim faqad halaka wa ahlak nabigu maxaan samaynaa qolyaha noocaasee khulafaa uraashidiin ka dambeeyey khaalituuhum biajsaadikum wazaayiluuhum biacmaalikum washhaduu cala almuxsini biannahu muxsin wa cala almusii biannahu musii musaaraxadaasa loo baahan yahay wuxuu idhi jirkiinna la jooga haddee meelaad aadaan magaalaad u geli waayahay midda kugu habsada islaam sheeganaya meelaad aadama taqaanid iska dhex joog laakiin ha ku camal noqonin khaalituuhum biajsaadikum wazaayiluuhum biacmaalikum camalkiinna kaga duwanaada camal ilaahay raalli ka yahay oo diina la taagnow intaa waxaa dheer ummadda ha loo aamusame ee washhadu qiraa layidhi caddeeya ninka mukhti ee musii'a inuu musii yahay caddeeya hebel waa xun yahay la taagnow waa khariban yahay tuug khaa'ina wey tabar kale ma haysid midka wanaagsan cidduu doorum ha noqdo waa muxsin dheh le'annu haddaan intaan la helin waxaa soo degdegay marxalo loo yaqaana marxalatu alindiraas culammadu waxay yidhahdaan diinta islaamku saddex marxalay martaa marxalatu alquwa duhuur marxalatu aliltibaas marxalatu alindiraas oo fataraadka ah mar waxaa weeye islaamkiibaa awood leh dawladda islaamka seefteedii baa cerka calankii baa babanhaya far ninkii qadashan bay saartaa cilmigii sunnada ahaabaa muuqda bidcadu cagta hoosteeday ku jirtaa waa marxalatu duhuur walquwa la yidhahdaa xilligaas qaab loo hadlo ama loo khudbeeyo ama loo dhiga diintaa jira dayib salaad kulba say kuu qabaata loo tukadaa wey khidaabka diiniga qaab buu xilligaa leeyahay marxalana waa marxalatu aliltibaas tawxiidkii baa shirki laga dhigay shirkigii baa tawxiid noqday bidcadii baa sunna sunnadii baa bidca abu aalib ku gabanhaya buu la taagnaa waxan waa baatil laatiyo hubul waa ka kac tuug baa tihiin kafaraad tihiin mushrikiin baa tihiin
waxaa la gaari ruuxa muslimka ah waxa uu daneeyo ee dantiisa waa maxay waa calooshiisa maxaa cunta maxay cabtaa xugo biila ku jira mid baa ku dhawr meesha maxaa ka doonta mushaar fiican baa laga helayaa biya cabaal baa laga heli xugo dhaqaala laga helayaa يعني همديسي iyo walbahaarkiisa iyo fikirkiisu waxa weeye batnigiisa waxa uu diina hawadiisa naftiisu waxay u meeriso ba u diina mid baan maalig waxaan ku urur hawsha ma iska deys wuxuu yiri hebel gaalnimo kasta haduu ku dhaco he qiil baan u helaynaa waa daaci la sucaad misaayida kugu xiriiri gaalnimo kasta haduu dhax fariistabo fadii ila joogay maalinka inay fadhiyaan baa laga yaabaa goobta wuxuu yiri gaalnimo kasta haduu ku dhaco qiil baan u helaynaa maxaa yeelay waa lagu kalifaaya إذا هالكاسي تاجرتها يعني دين تيسو ووحو أصو كهل نفتيسة ووحو جيبكسو كلا صبحو معها دين ودونا يا دين كتاب جزونا ذا كقرن وحي الراعة هديات علومتهين يا دعاة عروضة وإن لقوا تربية يا جبنمو يا إسلام يا دين ضعف يدل يا هوان على لقوا تربيين تانا وحي كإيمان أبو وإنا تهاي من جبنمو ذا شعل جبنمو ودين تيسو مالك كما الله مد الديمات بانكال وإن مدى أيضا معلنكو قابكو رقمه يلمنو رقمه هيا لولا وحول أرضي وليبا معلن كيسا مالهم بوغاء كذايفو واساس أرضي وليبا معلن كيسا مالهم بوغاء كذا واسحوي معلن معلنك وحكود لكو حنبت كلاهري كل الحرف كقابكو وقلو عنتي أدقل عيس ووحل هضوي هاداد إسلين نين اسكر رعضانو جامع موسكو ذا آدان أوض شيكيستان رقميس وحواكا كسو هراي كل إرو الصومالي أكبرته كل حاجة يقولون كوشيجو كل ضبك تصد أصعده صزام معه ضد كبير آدم كل رجحيا معه واستأثيريان والسامين هيان سيدا درت قدوة حسنة إن بدن علماء وكهل دينتنا كذاش معلنكو وإنه نقض معلن جبأة المهنة جبنة وكتر بيئة جبنة بدن ما إلا قلف سوا ما ضنها لجس فرده أما الاسم مسكيمية عند قطنين فراتة العزانة وعاوزكم مذهي لا ما بهانو بحوها منك اللورنجري أبو عبد الرحمن السلمي بحوها لم يكن أصحاب رسول الله متحزقين ولا متماوتين كانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم لكن إذا أريد أحد منهم في أمر دينه دارت حماليق عينه كأنه مجنون بور صحابي النبي محمد بور لم يكونوا متحزق وروح الحرن كما دارها يداري طبع الله واء ولا متماوت نقول لها اسم مسكينين ده صدق دغنا ما يسنهاي تواضع موجين هي waa miskiin oo bahul bus ka dhig isha daba dhigahay oo diyaamo ku habaaraba shaad dhigaysa waxa loo baahar saxaabadu marka mutamaawitina ma aysan ahayn mutaxazziqiina ma aysan ahayn waxay ahaayeen boo niman markay meel fadhiistaan iska sheekeeyo oo nin gabay soo tuuro oo ashcaarta dareeriyo oo iska sheekaysto dad caadi ahaayeen boo mararka qaarkood xilligii jaahiliga shirkiyaadkii bay ka sheekaysan jireen wixii la soo maray xurubul qabaa'ilka hore gabayii hebel maalinka saasuu ka yidhi bar mararka qaarkood nabiga intuu dhageysto qosli jiray gabay isdhaafsan hayaan tayib laakiin wuxuu yiri markii diintooda faraha la soo galo wax diin ku saabsan laga hadlo ninka saxaabiga indhaha wareegay buu inuu waaleeyay madax calow dhiganaya waa ruux iska caadi oo degan oo basiid ah laakiin markay diin hawshu gaadho tala waa waalanaya buu bimaana nin rag uu noqonaya buu hada waxay haysta waa cagsi wadaadku markuu dadka dhex joogo waa musiibo muruq kuusan safka kugu ciriiri hadlo og balaaya indhaha ka soo ridi marka gaal la iska dhiciyo isku xaaraayaba soo cagsiga ma cagsi weey saxaabadu dad iska dabacsan oo jilicsan oo ahlu khayr oo anas dibin oo takalluf ma lahayn weey dabeecadiisaas ku soconaya laakiin arintii haday noqoto in loo dheel qaado ama diin hal laga hadlo ama hal difaaca دارت حماليق عينه كأنه مجنون بكر بن عبد الله المزني أسوأ حديث كيسي وحديث صحيحة وعصوصر حديث بخاري إيو في الأدب المفرد ابن أبي شيبة في المصنف أسوأ حوليه نيك الله يقان بكر بن عبد المزني أسوأ حوليه حديث كان أصحاب الرسول يتبادحون البطيخة صحابته
waxay isku turtuuri jireen baalkan bocorka ama qaraha iska ciyaari jireen waa fadhiyaan bocorka timirta si isku turtuuro kale baa isku turtuurahayaan فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال markay caadiga yihiin niman iska degan oo iska ciyaara way oo bocorka iyo khudaarta isku turtuura laakiin marka la diinha loo arrimiyo kaanu ayagu baraga waa looga tagi jiray عند أحمد في علله وحاكسوغان حديثا سنكا صحيح أعمش غيركي لغا وريو أو إليهين صحابة النبي محمد نمان وايلو إسكا علاانتي أهاي علاanku xalay ku marsaday gacantiisa faraha kaga yaalabo ul bakoro jajaban oo dhaxda laga kabay oo macdan iyo maal lagu xidhay buu iska wata kabaj dhamaad ah macawis jajeexan buu iska qaba mid duubato meesha fuulinka kor u joogto masaakiin bay ahayn buu markaad korka fiiriso laakiin fa idaa kaanat alhaqaa'iq kaanhum ar-rijal dagaal hadii leeyahay hal ayaga meesha looga tagay buu ayagoo taaga balga dhaqaaqay yani ruuxa muslimka ah saasa laga rabaa laakiin ina dhaqan munaafiqiin kaanhum khushub musannada giirka iyo balaqa ku yaala iyo xooga Allah yaabi iyo quruxda iyo shaxartaanka iyo heybada ka muuqata markay nabadu jirto iyo wanaag marka xoogo ishu dhiigto ama dhiida la gaarana haweenku gadaal ka mariba loo fadhin maayo waa cagsiga saxaabada way lama doonayo ummadda waa in lagu tarbiyeeyo ilaahay subhanahu diintiisa caruurta waa in lagu tarbiyeeyo dadka aad soo saaraysan ba ummadda u ah mustaqbalka lama hayo waa la baabaay adduunkan waxa haysan jiray wadciga Soomaaliya waa garanaysan suufiyo iyo qabuuriyiin wataniyiin ba haysan jiray dadkii ilaahay dacwad tawxiid lagu tarbiyeeyo maanta ummadeen dhaw ah waa ogtii kuwaad idinku maanta haystaan hadii aad ka shaqeysaan oo wada wanaagsan cagta u saartaan ummadda waa anfici doona laakiin hadad halaysaan hadii meeshaas waxa weeyaan لو ما قلنا عيلين وما مغنوي وحا يقول دمبين كو ختمها التواضع وإن سو تواضعه بمعنى ليدنان دبع سنان يتشلع وإن مسلمين الله موتيو أضيق يقلب سنان قال الله موتيو فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت قليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر يعني النبي وحنا محمد إلهي إن حريستي يا جلدي بعد كده بعسناتي هذان ربك جلدا كسين له هذا وحكي نقول لك إلهي وإلا بريو عروته وإن لو دبع سناده وإن لو دنقضه وإن تعاطف الله موتيه وإن لا تربيه مسلمين تم حلقوا إشارة خير كبد إلهي وكب بدلها يو فسوف يأتي مرتدين تكب بدلها يو فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمن أعزة على الكافرين محمد رسول الله والذين أشدوا على الكفار رحماء بينه ابن تيمية وحوله في الاستقامة وحاجر مسلمين تناكوكا كان قالنا النقول يا كمذا هل تصال يا سنكرة ضد وحاجر مسلمين تناكوكا كل صلدي ومسلمين تنمركي أركان حين يلا صبعي مركي قال أركي كفرانا هي سوس بي أولياء نقون هي جديد يوي وجديدية عد كلامها عكاشية كوحلس إذن وخفض جناحك خوارج بلغوا يغردقن كاسقا خارجي وحاو دقنه يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام إن قال هذا يا مشركين تفرح لغا قاضو هي مسلمين تنا إبر لغا لغوا دقن خوارج دقن خوارج وحا إسكايري منك جديدية لو يقان أما الربيعية أما مدخلية أما جامية ليلابك رجعوا قانشنا وايدين شجعات طيب قل يا كلام كبقى هي أنا مشروعها كبيران لكن الله سخر المهم نبي حولي إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغى أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد ولا يبغى أحد على أحد إلهي وحي ذي إن هذا سن قلاتان تواضع ومحي وإن كرم كذا كتجن خلق وناس هذا كتجن قليفك يا أبي قاعد كي أنت أول ذكرت وحي ماشي اللي باهي هنا دكتور لقاربه حكمه ومحي ووضع الشيء في محله المناسب في وقته المناسب على وجه ينبغي شيء حكمه لو يقان وحاول الشيء أن أذوق وتصير الله بهنا أذوق وتحلق الله بهنا أذوق وتصير أوقف عن سيد أوقف عن حلق المناسب كأها يقابك الله قبل لا يصير أوقف عنا طيب ninkii dhintaa asagoo dayn iyo quluul iyo kibir ka maran nabigu waa ahlu jannah
kibirka iyo isla weynanka iyo faqfaqada la iska daayo muslimiinta loo dabacsanaado masalada ugu dambaysan ku khatam waxa weey ataawun ala khair haddaad macallimiin tihiin baryahan dambe nuux badan baa imanaysa qayla idin ka soo yeedhay inaan la iskaalmaysanin oo nin kastaba meel u dhaqaaqay baa na soo gaadhay in la iskaalmayso dacwada Nairobi ka jirta ama Kenya ba ka jirta ama meelo badan ba ka jirta la isu kaalmayso waa shay muhiim ah culimadu markay ka hadlayaan aayada ay qaala sanashuddu adudaka bi akhiika waxay leeyihiin waa asl fi taawun hadiiba nabi u baahday in la garbiyo nabi ilaahay la daba taagay waxyiga iyo diintii oo la saxayo hadii la garabkada waxaanu ku xoojin walaalka Haaruun adoo sakaraad ah on tawarbayn maxad u malay idan in la iskaalmaystay waa asal min usul diin wa taawunu ala albirri wat taqwa wala taawunu ala al-ithmi wal 'udwan akhawani nasiran bu nabi sallallahu alayhi wasallam ku tilmaamay mu'minku waxa weeye muslimiintu waa laba walaalo isu gargaara wa in istazarukum fi ad-din fa alaykum an-nasr idan la budda min an-nusra taawunka da'awga maadaama aqalliya muslima oo mustad'afa aynu kunahay wadankan haddana inaan intii yaray ay si kala dhaqaaqdo musiibo waa in la iskaalmaysto waa in waxyaabaha masaalixda guud ee ummadda in la tarbiyeeyo ah dacwada tawxiid la sukaalmaysta ah shirkiga in la dagaalamo ah khuraafaadka bidca in la dabar gooyo ah intaas hadaynu ka wada socono wixii kale waa ka heshin karaa waxa hadda noogu daran waxa weeye go'aamadii aan siyaasadda Soomaaliya ka qaadan lahayn baa lagu kala tagay ninba go'aan buu ku dhuftay go'aamaha hadii la isku khilaafay inta aynu isku waafaqsanayna ka wada shaqeyn haddii adigu ninkan gaal murtada ku yahay nin buu u yahay muslim ahlu khayr ah oo ash'ari oo ahlu majmac nin buu u yahay idan al-hukm ala al-ashkhas wa mas'ala inuu in badan tilmaan inay tahay mas'ala ijtihaadiyya kulba xogta ruuxan ka haysay ku xiran tahay xog badan iyo macluumaad bad ka haysaa xukun bad ka gaadhay wadaadkan walaalka ee muslimka asoo xog badan ba kama hayo ama xogtii waa maqlub u gashay ama sharkii buu gadis u gashaday idan xukum kaadi ka bedelan buu qaatay oo go'aan ka bedelan waana cuur daarto Abu Bakar iyo Umar markay isku qabteen maanici zakaa Umar waa ka naqaashay inay nimanka aysan gaala ahayn Abu Bakarna waa xujeystay inay gaala yihiin markuu Umar niqaashayay Abu Bakar ma dhihin gaal baa tahay laanaka tudaafi an al-kafara ma dhihin على مسألة ومسألة الحكم على الأشخاص ومسألة تخضع للاجتهاد والمعلومات عندك يوم الفتن مكي اللي قال صحابه الدقالمين صحابه كقاب صدي هوش الدورة هي يكوي الدقالمة هي انتو با ايقو اسكو دعسا كموقف اهان باي ولالي اهل اهين سلامة اسحريرية اسكور قبودتو كذا انو عور بالقو ايدي واسده عبد الله يزور ولدتو كريسا حججنا ولدتو كان واسده حور إذا ما كنا نقول يرام بوري إلى السلاح تجي من نبو وإلى الصلاة وان تجي نبو هذا هو كسوقات ودجال قارد أوان دين ديو صلاة كاليا نقبل بور بمعنى وام حي فساد كلكم تجرب بوري خير كره وان كتيرة يعني روح مسلم كأنت وناقصنا وكوجو يرهايو كلا يبقى حماها أنا أصيء أطالع مسألة الحكم على الأشخاصنا هل يسكوجو عذر دار ابن تيمية أردجز ذهبي وحيسكو خلافين في التكفير ابن العربي ابن عربي وحوري ابن تيمية نينكا قال سما مجرم ذهبي وحوري وحاد دعي كرتا إنكا سواقي دنبو كالارتي إنو تأويلات هذا الكيسولية هاي هذا الكيسون أو ظاهر يا باطن يا لنكر أو دور حل يا استعارات با كتشرا ملدهاد ودفاع بنبو دفاعي ذهبي وقال لي ما إنها دوخل دم لأنه دافع عن المنافقين والزنادقة أبدا ابن القيم يا شيخ يسكو خلاف مسائل واويل يعني الحكم على الأشخاص كل بحكتات كهيس الروح عن بيكو عرنتاي ولا يسكو عرداد لكن كافر كأسلي نينك أسكو دفاعي هوستي إنه كحريقينا مهمته وحوي خير كالسكو كالميستو وحي الشارنا أمدها لقوة الدفاعه وحي عن خير الشيء الله يدنكو أنفعه وحي حمي إن شاء الله يدن قرمري أنا الله يدافعه بالله توفيق جزاه الله خير سبحانه وتعالى جزاك صلاة بعد الله ولا قوة مركا إن شاء الله تعالى انت يرى وقتنا نورد من يجي مركا سؤالا أيام الشيخ ويدينا السؤال بحلقة فقرا يعني وحي سؤالا ولا الله شيخ انت يرى وقتك قد من بن ويديني نورد
سؤال شيخ وحليه سام وداوينا رياها يحسد qaabka loo daaweyn xasadka iyo riyaha waa inaga sheegnay xasadu daawadiisu midna waa daawo ku saabsan wixii maxaa dambi ka soo gaaray goormaasa dambi lagaga qorahaya xasadku marxaba sheekh marxaba sheekh 2 daqiiqo waa kugu yartay 3 ka dhigo marxaba sheekh آمين 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 أرين بارين كاب على ضيوف علمي أكو ما هيستو بيحيل لكن حق صومالي كصابسن أما التجربة وانكو هيستا مركا dadka Soomaaliyeed ee geeska Afrika ku nool waa dad muslimiin ah 100% wasa gaaloobi karaan way gaaloobi karaan laakiin intaan ognahay wax cadeystay anigu ma hayo duwalka caalamka lagama helo dad yaani sidaas oo kala ah sida aan maqlay wala socodkay uu gaaban yahay muslimiinta laba madhab u fogo madhab shiica la yiraahdo madhab sunna la yiraahdo Soomaalidu waa ahlu sunna haddana wuxuu niqaasha waa jiray oo qolaan yar kala fognahay oo qoladii diintayna soo gaarsiisay geeska Afrikana nasaarada kala dagaalantay qarnigii reer Yurub ay rabeen inay guumeystaan waa nimankii suufiyada ahaa ee diintayna soo gaarsiiyay wixii khayr Allah ka abaal mariyo wixii ay ku khaldan yihiin Allah ka dhaafo wixii hadda aan la godgelin culimada adwaad ka mid tahay baa ka saxaya waa niqaash in la soo takfiiriyo ma qabo haddaan hore u soo dhaqaaqo sheekhana diinta rabbi kitaab oo sunna ahaan masaajidka eedkan kaga dhageystay hadday tahay diinta maxamediyada hadday tahay alle iyo hadday nusuus tahayba
مذهبك أي سلف كلادين ومذهب يعجب الملوك بآمن سيه إن هذا الدين بين بعض الملوك بأبغي إرجاء أي وضان من كان يجا مركز الدين توا دينتي بقرضة أي فهم لها يعني بقرضة يقنعزاه سعيد مجبور يقان يهود القبلة يقان من كان يجا يهود القبلة بوبحيي حالة شيخ سعود دار ما قالوا بين كانوي هالورد مريه كان الله سميه كفر عض بيقيل أراديان كان هذا كل شيء ينقلها واحد قصده إنك سميه قيل بنوه إن هذا كمدة مسائل كيان ومدى تلبيس كان لقد دايو تلبيسكم مدى هلا دايو وحي عد هلا عد نينكي نين وحكوها يستا أما إسكي الدفاع عنا أصيغ أطالع لكن مبدأ أولاد كأن شيء غير كأي فافيان ومذهب هدامة ومدى إن لو قد قمنا وأنا مبدأ مذهب الجهمية والمرجئة نمان كانوا أقانوا كمدية هاي أما أي كمديهين سلفية الجهمية أي مرجئة الوهابية روحوا مركها دوسا مسائل كسكسوا الصحين أو بحث كسا من مسائل الكفر والإيمان محال اسكوها إياه محا خلاف أقبل الله قبل السعون كرا محان أقبين ومصيبه مدونا يمعلمون إن إنا يكشكيان نمانك اللو يقان الصوفية القبورية هدنا قال الله شقية أهل السنة والجماعة اللبحي إيه قبورة الضوافج سيلها غير كي عابودة إذ أكتيد إنا تكشي كذا كفر قد مدوني أما نمان كان كليش أحمد دفاع من أهل البدع بين نويهن أنه إيه وقال مليهن ومدنا نوقد قينا هوشان علماء ورنبا كدكتي روحوا سنوي سن قادرين وقتنا لاسكا بخني رئاسة اسكو هيسا ما رئاسة سماي دحيالا waxa dhaxyaala muxuu Soomaaliya isku haynayo ra'aasada aan isku haynayn isku riixayna maxay tahay nin walba in buu hortaagan yahay u khudbeeya waxna ka dhageysata nin kastaba xayn baa hor joogtay maxaa la isku hayaa nin biila ma jiro nin maxaan ku wax siiyay ma jiro Soomaali baa la wada yahay nin kasta qumana qoorta ugu jira waxaan isku riixayna ma jireen mabaadi baa la isku hayaay kitaab bayna ku qoran tahay ninka aqoon laha ka niqaasho meel ha fadhiisto laakiin caatifada noocaas oo kala waxba tari mayso أقول إن شاء الله تعالى على هذا الصراط بانكو سعون وحين إلتها هي مسألة الرياء والحسد أوصل لابته شاء أحمد ما دينا نوى قال الله سكي إراديو لأنه وحان بضن إن تذكر قاركي هذا الكاترائي تحريفيات ما يدوبة وحال يودي برعة كالصومالي أنه 10 كتشرة وحان نقول اللصوص المسلمين بالله يقانا فقاء المالكية توق المسلمين تو يقانا توق مسلم وحو مسلم كقاتنا وحرام وانا قاطع طريق محاربة wuxuu gaal ka qaatana waa xalaal aroon soo gaarin sigiska uu shariiku 10 ku ahay ba waxaan ugu yimid wuxuu waa mujaahidiin yaani noocaas dad wax u taxriifina waa jiraan la iska ilaaliyo masalada xasadka riyaagu waa inaga soo tilmaanay daawadeedu waxa weeye in ilaahay subhanahu wa ta'ala isku xiro at-tawakkul wal i'timad ala Allah iyo ilmi yaqiina in la yimaado thalithan la akhriyot sir as-salihin qaabkii salaf u daaweeyay cudurkan kitaabka siira calmama loo yaqaan hala muraajaciyo mujalladka كوباد إلى مجلد تقريبا 15 أنت ودحيسة هلا مراجعية وحد كيلز علمي فربضا سلف كهالقود ضيضو كتاب الزهديات كهلا آخر زود بن مارا وكله كأبو داود وكله كأحمد وكله قاب كداويين باقو قرنا فربضا محمد وحاويين لسكحله ابن آدم نعم وحلمودين إلهنا الله تعالى صارته نول بنا وحو ربي وقدر إنه هيلا هيلا آمنه مسألة القضاء والقدر هي مسألة التوكل هي اليقين بالقود داوية الله بالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم وحي سؤالا أو مكا مقوية وقت ينغرد من تفضل بعض المعلمين يكدواجيا مثلا سعود إن دليل علماء معلمين كمان جرتي إن شيخ هذا عبد الله شيخ شبل يوحي لنا إن دليل وهاكم وحد تسبيوين وحبيروين كان مصر درمين ما دام يقران سومالي واحد كبير من التاريخ اليوم ساس درادي برنا كنا أي حتى إن الله في سنة زور الدنب نتقالنا تاسوا من وليها ساس أو القانونيان إن مدرسة المدارس الغنانية إن الكتورة النقدان يكونوا النقدان حبيبين يكونوا قصدان سنورة المقصود عليه لأجل علماء درادي يرجع الكترامين فاكوني من الثلاثين بلوغا ما كتر تجاس جنس ما كيف قطع
bismillaah waxaan moodayay inaan masaladaas soo tilmaamay midda koobaad culummada ha la ixtiraamo culummada wanaagsan ee sunniyiinta ahlu khayrka ah sida labada sheekh ee la magac dhabay ixtiraam badan iyo tawqiir waa in loo muujiyo hadday ra'yi qaataan ood u aragta inay ku khaldan yihiin oogu cudurdaar laakiin wanaaggoodii iyo juhuuddoodii iyo dacwadoodii iyo magacoodii in meel lagaga dhaca ma aha caydu iyo xadgudubku wax loo baahan yahay ma aha labada wadaadee la sheegay mabda' hadda ay ku khaldan yihiin ooy ummadda ugu yeedhahayaan oon ku naqdiroon kala hadal anugu maanan arag mawqif kasta ay ka qaateen soomaaliya waa khilaafsanahay yacni masala mucayana go'aan wadaad ka qaatay iyo mabda' ummadda ugu yeedha waa laba kala baab mawqif mucayana ruuxu meeshuu ka istaago iyo mabda'u aaminsan ummaddana ugu yeedha laba kala baab weeye marka arrinkaas waa saas culammada waxaan ka aaminsanahay arrintay la yimaadeen ay ku dhaceen waa ku khaldan yihiin cudurdaarna waa ku leeyihiin in lagu xadgudbo wax laga sheegana waa xaaraan in la durana waa xaaraan waa ra'yi diinoy qabaan ninkii wax ka qaba ha la niqaasho u tago hadday ka qaataanna khayr hadday diidaanna waa khayr asagu xilkiisi waa gutay wixii tacaamule dacawi ah in darajadii iyo meeqaankay lahaayeen iyo xubankay ummaddu u qaban jireen weli ay sii qabtaan baan aaminsanahay muxaadaraadkooda ay wadaan majaalista aad ugu yeedhaan meeshaad aniga ilugeynaysaan ayaga aad keentaan waa go'aankaan ka aaminsanahay way middaa iyada amaa madallada hawsha ku saabsan waa la ii sheegay haddaay wadaadii soo wacay baa ii tilmaamay sheekh cabdullaahi durkiisu waa ii tilmaamay adna waa hadda waad ka shanqarisay ma taageersani intii yarayada isiyaysaa laysii kala jebiyo ma taageersani mana soo dhowaynayo shakhsiyan maxaa yeelay waa nidaamkii gaalada ay wadatayoo tajzi'atu almujaza' wa taftiitu almufatad horaan shay lasii burburiyo oo la qaybiyo haddana lasii qaybiyo ilaa la gaadho qaybaan qaybsamaynin oo markaa in la baabiyo ay noqonayso hawshaa ma wanaagsano idinkoo go'aamo kala duwan ka qaba arrinka soomaaliya danta khaaska iyo tacaamka ka jirta waddankan aad joogtaan ee dacawiga ah ka wada socda isuna dulqaata wixii niqaashaad ee fiqiyadana hoos oga niqaasha ardada iyo talaba yaan la gaadhsiinin masaa'idda waaweyn yaan la keenin majaalista noocan oo kale yaan laga soo darxinin ma xataa ma wanaagsano waxay uun sii kordhin balbala iyo qalqulooyin waxay keenaysaa tashwiish fara badan bay keeni afkaartii baa iska hor iman hoos u dhaqa oo idinku wada niqaasha wadaaddaha gooni oogu taga ardadana hawsha yaan la gaadhsiinin madalladu waa inay sii jirto intaan ku ogayn wanaag iyo khayr bay waday ninka wax taban haya ama xumaan annagu aan ogayn ku haya ha soo gudbiyo ama waa laga bogsiin ama nimankaynu qabanaynaa inu la garaacaynaa wabilaahi tawfiiq نعم فضل يا شيخ. عليه السلام. وحضر موضوع المشكله والريكتا وين مقوى خالص لكن هذا السوق الثاني هو سؤال تحرير الكمبيوتر يا رجل قاعد مع راس الصوت الناس معوي قرانك وانت زي ما الله الله فيه وكيف هو صوت تكون هي تكون هي بس هو السياره عمل شكل حديث ولا ورينا كده هذا سعيد يمكن ابو موسى الاشعري لو هذا اوجه هي حبرت لك كثيرا والعرض على كهذا الوجه ضحك بارك ما كان ليس بارك الله فيك وسؤال wanaagsan weeye asal wixii camal ah ee ruuxa muslimka uu la imanayo inuu ilaahay ula qasto dadkana uusan waxba ku mutaabacayn kuna mulaaxadayn ayagana uusan ku tixgelinin ninka loo yaqaan al-Imam at-Tayyibi xadiidka Abi Musa al-Ash'ari markuu keenayo wuxuu tilmaamayaa iyo tobarshid inuu ama filaya ninka sharix al-Mishkaadka ah wuxuu tilmaamayaa wuxuu leeyahay xadiidkan riyaana kuma jiro ikhlaaskana dhaawici maayo li'annu nabiga in la farax geliyo oo la raali geliya meel cibaada ah la xabartu laka tahbiran ay la zayyantu laka tazyiinan wuxuu uga jeedaa ama tahsiinan nabigu inuu dadku wax baray ee diinta gaadhsiiyay mid ka mid ah oo cod wanaagsan quraan ku akhriyo nabigu ku farxay baa cibaadada ka sarreysa riyihi iyo wixii yaraa meesha soo gal lahaa marka maadaama fuqaadu yiraahdaan nabigu adoo salaad ku jira haduu ku yiraahdo waa laga bixi salaad
adoo alla hor taagan oo tukanaya yani ragcatayn sunna ah haddaan la jamcin karin nabiga la ajiibo loo tago iyo salaaddii aan la jamcin karin waxaa la hormarinhayaa ajiibitaanka rasuulka maalikiin ay dhaheen waad ajiibi laakiin salaad u jabi mayso labayk yaa rasuulallah iyaaka nacbudu baad sii wada bay leeyihiin oo isdiidi mayso hadalkaasaan limaslaxati dacwa ah marka wadaadkaasaan kulley intaan arkay ishaaro wuxuu leeyahay masaladu dhaawac ikhlaasna kuma jiro riyana ma aha subxaana noqon mayse waa irdaa iyo in nabiga la farax geliyo waana min ahim alcibaadaati wa awal qurbaati ilaahi buu leeyahay marka saasaa keenay mararka qaarkood waxyaabaha tashjiic oo kale wadaadaha fasaxay waxay leeyihiin riyaaga ama sumcadu waa shirki asqara haddii la helo matalan maslaxa taa ka weyn oo mararka qaarkood tan loo dulqaadan karo waa la hormarin kara laakiin shirki maslaxa mafsada ka weyn ma ay jirto shirkiga asqarkana wax ka weyn ma uu jiro masalada ayadee loo abu muusa alashcarina waa qadiyatu cayn cumuumna la gelin mahayo nabigayna khusaysaa iyo saxaabadii marka ay dhex martay intaas wadaadkaasaa ishaaray wax kalena aanu ma arag hadduu wadaadku wax kala hayo waa inoo sheegay insha allahu tacaala wabillahi tawfiiq baarak allah fiik waad fasaxdeen bay la tahay mise waxbaa dhima qaabka wax loo wada hayo waa masaa'il fanni ah waxyaabaha wasaa'isha ana ma laha xuduud alwasaa'il laa daabita laha bay fuqaadu yidhahdaan qaabka wax loo fulin macajal baynu isticmaalnaa goorman wax qabannaa xilligeen ka dhignaa wasaa'ilka wax loo fulin dacwadu ma aha tawqiifi dawaabidna ma laha laakiin ummadda waxa loogu yeedhi baa tawqiifi ah tawxiidka in loogu yeedho diin in loo sheego laakiin qaabka loo fulin iyo qaabka loo dhigi iyo xilliga laga dhigi iyo cidda fulin waxaasoo dhanba kolba waxay u khuduucdaa baahida waaqaca iyo casrigaas sidaa darteed bay fuqaadu waxay leeyihin addawaabit alwasaa'il laysa laha dawaabit kolba wuxuu raacin buu ku xugum yahay marka hadduu wasiila ilaa muxaram yana waa muxaram hadduu yahay wasiila ilaa nadbin aw wujuubinna waa dee xukumkaasuu qaadan xad sharci oo wasiila laga bixin karaa ma uu jiro hadday wadaaduhu u arkeen in wada jirka iyo wada socodka ay dana ugu jirto in madallada la soo maro wixii can dariiqeeda ka yimaadana wixii lagu habeeyo oo maamul iyo nidaam idaari ahaan looga jeedayo anugu wax dhiba uma arko laakiin waxaan ka baqayaa shakhsiyan inay waaga dambe noqoto ixtikaar waan ka baqahayaa sida hadda dadka qaarkii ay doonayaan fataawidii iyo codadkii muslimiinta inay ayagu u ixtikaaraan oo u afdubaan waa ka baqahaya laakiin wax dhiba ma laha intii la burburi lahaa hawsha madalladaha loo amar qaato ninkii wax taban hayana labada wadaad ha u taga hadee maxaad wadaadaha ula dagaalamaysaan cabdullaahi mire iyo muxuu ahayey yaa kula weheliyay adugu ya xasan wadaadaha loo tago waxaasaanu tabanayna dhaha wadaaduhu cidna hadda u xaglin mahayaane waana culammadii waddanka marka waxaan jeclahay inaad wada jirka aad ku dadaashaan meeshan meel aqbasha in lagu qaybsama ma aha mabaadi iyo mawaaqif ha lagu kala taga laakiin wada jirka iyo ijtimaacaasi daawo weeye wixii la sixi karaa ha la saxo laakiin wadaadahana waxaan leenahay baashu waaga dambe aysan noqonin nimaan madallo soo maray wuxuu sameeyey waa baatil aysan gaadhin wabillahi tawfiiq